markab dagaal oo maanta ku soo xiranaya magaalada caasimadda ee Muqdisho xilli la sii ambaqaadayo heshiiskii ammaanka badda Soomaaliya Turkiga lagu gacan geliyay. Madaxda dowladda Soomaaliya oo qorsheynaya ambaqaadida shirka golaha wadatashiga qaran kaas oo dhawaan dib u dhac uu ku yimid. Dowladda Turkiga oo sheegtay xilliga la bilaabayo qodista shidaalka Soomaaliya ku jira iyo wasiirka wasaaradda batroolka oo arrimo cusub faahfaahin ka bixiyay. 5 qof oo la sheegay in loo soo xiray dilkii Allaha u naxariistay Cabdi Naasir Dahable kaas oo hor loogu dilay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Wararka ka baxsan Soomaaliya saaka waxaa ugu dooran koox ku xirneyd Iiraan oo markaasi weerar ku qaaday saldhig ciidamada Mareykanka ay leeyihiin. Dekedda magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa lagu wadaa in maanta ay ku soo xirto markab dagaal oo dowladda Turkiga ay leedahay kaas oo ah markabkii ugu horreeyay howlgalka Turkiga oo loo saxeexay in 10 sano uu sugo amniga iyo xasilloonida badda Soomaaliya. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa saaki lagu wadaa inay tagaan dekedda Muqdisho si markabka Turkiga iyo saraakiisha la socota ay ugu soo dhaweeyaan Muqdisho waxaana toos u bilaabanaya howlgalka Turkiga oo soo degaya xeebaha dalkeena. Markabkan ayaa waxaa la sheegay inuu sido qalab lagu rakibayo xeebaha dalka oo ilaalada amniga ka qayb qaadanaya diyaarado sahan sameynaya doomo iyo agabyo kale oo muhiim u ah howlgalka Turkiga ee Soomaaliya dhinaca badda. Waxaa suurtagal ah in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu maanta dekedda tago. Sidoo kale waxaa la hakiyay shaqadii dekedda iyada oo ganacsatada lagu wargeliyay inay sugaan oo shaqada joojiyaan maalmaha soo socda ee hawshan lagu guda jiro. Wadooyinka agmara dekedda Muqdisho ayaa saaki lagu waabariistay iyagoo xiran. Marka hore ayaana la qorsheeyay arrintan maadaama markabkan oo sida xamuul iyo saanad culus oo maalmo markaasi u soo socday magaalada caasimadda ee Muqdisho. Soomaaliya waxay heshiis kaashi oo difaaca la gashay Turkiga kaas oo lagu ilaalinayo xeebaha dalkeena sidoo kale shidaal looga qodiyo dalkeena. Sanadka 2025 dowladda Turkiga ayaa waxay Soomaaliya ka bilaabaysaa qodista shidaalka sida uu shaaciyay wasiirka wasaaradda tamarta dowladda waddanka Turkiga. 10 sano ayuu sii joogayaa Soomaaliya howlgalka Turkiga ee loo saxeexay ilaalada xeebaha Soomaaliya. Muddadaas waxay dowladda Soomaaliya ku dhisi doontaa ciidanka badda sidoo kale waxay ku soo saari doontaa shidaalka dalkeeda ayaa uu hadalkiisa sii raaciyay. Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya waxay qorsheynaysaa in dib loo ambaqaado shirka golaha wadatashiga qaran kaas oo dhawaan dib u dhac uu ku yimid. Faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya Mustafa Cali Cadow. madaxda dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa ku sugan magaalada Muqdisho kuwaas oo caasimadda u tagay shirka golaha wadatashiga qaranka ee dib u dhac uu ku yimid. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana madaxda dowlad goboleedyada ku casuumay shirkaasi oo qorshuhu ahaa inuu dhaco 20 bishan balse arrimo farsamo u baaqday sida ay sheegtay Villa Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa qaadacay hogaamiyaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani halka uu ka maqoortay sida muuqata hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo waayahan la soo warinayay in ay kala furteen isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh. Madaxda dowlad goboleedyada saddexda ah ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxay kulamo gooni ay la qaateen wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Cali Yuusuf Xoosh ayaana kulamo gaar ah waxa uu la yeeshay madaxda dowlad goboleedyada isugu jira xog wareysi wada shaqeynta dhinacyada sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha. Inta mas'uuliyiintani ay fadhiga lahaayeen arrimaha sida hordhaca looga hadlay waxaa ugu muhiimsan wada shaqeynta wasaaradda iyo dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, hortabinta qaranka iyo sidoo kale qaar kale ayaana lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda oo kulamadani ay soo saartay. Kulamada ka dhacay magaalada Muqdisho ee dhexmaray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaana ahaa mid miro dhal ah. Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, Cali Guudlaaw Xuseen iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen ayaa weli magaalada Muqdisho u jooga u qabsoomidda shirka golaha wadatashiga qaranka kaasoo xafiiska ra'iisul wasaaraha uu shaaciyay in dib loo dhigay muddo kooban iyadoo aanan la shaacinin waqtiga la isugu imaanayo. Sababta ayaana waxaa lagu sheegay in shirkaasi uu iclaamiyay
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u baaqday arrimo farsamo balse faahfaahin kale oo dheeraad ah lagama bixin. maamul goboleedka Puntland ayaana sidoo kale waxay iska diideen in ay ka qayb galaan shirkan, waxaana ay sheegeen in dastuurka heshiiska lagu ahaa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tuntay, sidoo kalena isaga waxa uu doono uu ka yeeshay. waxay sidoo kale ay sheegeen inta laga dhisayo dowlad heshiis lagu wada yahay in aynan ka qayb geli doonin kulamada uu shaacinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. sidoo kale madaxda maamul goboleedka Puntland ayaa waxay sheegeen in aysan aqoonsaneyn dowlad rasmi ah oo xilligan ka jirta dalka, inta markaasi dowlad laga helayana ay sidan ay sii ahaan doonaan. aad buu mahadsan yahay Mustafa Cali oo faahfaahinta warkaasi soo jeedinayay. dhinaca kalena haddaynu eegno ilaa 5 qof ayaa la sheegay in loo soo xiray dalkii Allah u naxariistay Cabdinaasir Dahable oo ka mid ahaa madaxda duulimaadyada Soomaaliya markaasi ee ka howlgalayay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo gurigiisa lagu dhex dilay. qaar ka mid ah ehelada iyo sidoo kale waalidiinta dhalinyaradii Somaliland ee loo xiray dilkii injineer Cabdinaasir Dahable ayaa maanta markaasi la hadlay warbaahinta iyaga oo markaasi cabasho weyn muujinayay. Cabdinaasir oo kasoo jeeday gobolka Awdal ee Somaliland ayaa waxaa lagu dilay Muqdisho, gaar ahaan qolkiisa guri uu ka deganaa agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. dhalinyaro u badan reer Waqooyi ayaa loo qabtay dilka Cabdinaasir, waxaana weli ku socdo baaritaano oo looma gudbin maxkamadaha dalka. waxaa soo hadlay maanta ehelada dadka loo qabtay dilkii Cabdinaasir iyaga oo sheegay in ciqaab daran ay ku wajahayaan xarunta dambi baarista booliska ee CID ee magaalada Muqdisho. waxa ay sheegeen in loo diiday in la booqdo oo xitaa ay arkaan carruurtoodii iyaga oo lasoo dhaafay bishii Ramadaan oo qiimaheeda la og yahay iyo sidoo kale maalmihii ka dambeeyay ee ciidaba. sidoo kale odayaasha u hadlay ehelka waxa ay sheegeen inay ka war heleen in dhalinyarada loo soo xiray kiiskaas ay la kulmeen tacadiyo culus iyo jirdilo joogto ah, iyagoo codsi u diray madaxda dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in dhowaan maxkamadaha dalka ay u gudbiso kiisaska raggan 5 ah ee kasoo jeeda gobollada Waqooyi oo lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dilka Allah u naxariistay Cabdinaasir Dahable. dhinaca kalena haddaynu eegno dowladda waddanka Turkiga iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya wadajir waxay faahfaahin uga bixiyeen xilliga rasmiga ah ee la bilaabayo qodista shidaalka Soomaaliya. dhaqan khaliif cabdi soo jeedinaya. warbaahinta dowladda Turkiga oo soo xiganaysa wasiirka tamarta ee dowladda Turkiga ayaa sheegtay toddobaadkan in Turkiga oo sanadkan 2025 bilaabi doono qodista shidaalka Soomaaliya. wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa ka hadlay arrintan isagoo u warramay idaacadda VOA. waxa uuna sheegay in qorshaha qodista shidaalka uu socdo sida ay shaacisay dowladda Turkiga. wasiir Cabdirasaaq ayaa faahfaahin ka bixiyay hanaanka la qorsheeyay in loo maro shidaalka laga qodayo Soomaaliya, isaga oo sheegay in dowladda Turkiga ay leedahay bisha la bilaabayo hawsha. sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay la wadaageen balogyada uu ku jiro shidaalka Soomaaliya ee la sahmiyay, isla markaana ay weli sugayaan go'aanka iyo goobaha ay codsadeen. inta ka dhaxaysa Jubbaland iyo Galmudug Hobyo waxaa sahan ka sameeyay 2 kambani. daatooyinkaas waxa ay sheegeen in gaas iyo batrool aad u badan ay ku jiraan dhulka, waxa uu 4 mar ku jibaarmaa batrool qaali ahaa. wasiirka ayaa sheegay in Turkiga iyo Soomaaliya aysan weli kala saxiixan heshiis shidaal oo rasmi ah, balse ay go'aansadeen inay iska kaashadaan wax soo saarka kheyraadka, balse ay dhiman yihiin heshiisyada quseeya shidaal qodista. wasiirka ayaa la weydiiyey halka uu ku dambeeyay amarkii ra'iisul wasaaraha ee ahaa in heshiiska shidaalka ee Turkiga iyo Soomaaliya la soo mariyo guddiga heshiisyada u qaabilsan xukuumadda. waxa uuna sheegay wasiirku in arrintaasi ay weli tahay. waxa uuna sheegay in ra'iisul wasaaraha ay u sharaxayaan sida ay arrintani u socoto, isagoo rajo ka muujiyay in shakiga ka galay ra'iisul wasaaraha uu ka saari karo. dhaqan khaliif uu mahadsan yahay. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saacadihii ugu dambeeyay howlgallo culus oo Al-shabaab lagula dagaalamayay waxay ka wadeen qaybo ka tirsan gobolka la yiraahdo Mudug oo ka tirsan maamulka Galmudug. saraakiil ciidan oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale rag kale oo ka mid ah ciidanka deegaanka ayaana howlgalkaasi hoggaankiisa qayb ka ahaa. waxa ay sheegeen inay guulo kusoo dhammaadeen howlgalladii ay sameeyeen. lagu makaniyey
khawaarijtana naga gacan sarraysiiyey dulmi iyo daacadu ekayn maayaan meeshaan waa meeshii casharka loogu dhigay galabta dhoweed ceeshaana dhan hadda waxaa ka soo uraya baktigoodii tuutahoodiiyaa ka muuqda iyo lafahoodii ceesha dhama cabid male lama cabo 120 nimaa ku jirta oo iyagaa khawaarijtii ah raggii casharka u dhiga weeye raggaani oo weliba usii ceel qabo dhigooda usii ooman ma ahan dadka ka cararaya ama difaacyada u banaynaya ma ahan ciidankaani waa ciidan Soomaaliya meel kasta oo ay ka joogaan inay baacsadaan ilaa ay ka dabar go'ayaan waxa weeye ciidanka haraya ma ahan ciidan go'aan qaatay weeye ciidan geesiyaala waaye saaka howlgalkan inta General Xorgaay uu sheegay ayaan soo marnay xalay meeshaan ku hoyanay saakaan ka dhaqaaqnay rab badanaan soo marnay nimanku waa leedeen waa jabeen waa isqabteen waa kala tageen waxaan leenahay galmudug 500 uga maharin galmudug inta ay ka taliso 500 uga maharin annaga meel kasta oo nimankaas ay joogaan inaan kula dirnaa ilaahay hortiisa aan ka ballan qaadayna nimankaan tabar ma lahan annagaaba ku filan inteenaan ciidankan dib u xoreynta ee maaragtay 4 beelood ee jooga xara dheere ayaaba ku filan galmudug oo dhan waxa weeye iyo ciidanka kale oo walaalaheena oo dawladda federaalka ah oo haddaba saaka howlgalka maaragtay nugula jira oo waxa weeye aagu hadda waa badan yihiin ayagana meel baan u dirnay annaguna meel baan maaragtay aan howlgalka u soo aadnay waana isgarabsanaa labana kala marnihin warka subaxnimo eed maqlisaan intaa dibadda markan haddaynu eegno gantaalo laga soo tuuray waqooyiga Ciraaq ayaa lagu weeraray saldhig ay Syria ku leeyihiin shisheeyaha Mareykanka uu hogaaminayo sida ay ku waramayaan ciidamada amniga ee dalka Ciraaq isbahaysiga la dagaalanka kooxaha jihaadiyiinta ayaa la sheegay in mid ka mid ah diyaaradahooda dagaalka Ciraaq ay burburisay gantaal iyaga oo markaasi isdifaacaya kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya weerar gantaal oo fashilmay meel u dhow saldhig ku yaala waqooyiga bari ee Syria waa weerarkii ugu horeeyay ee culus ee lagu qaado ciidamada shisheeyaha muddo dhowr iyo 10 sano oo halkaas ay joogaan waxa uu ku soo beegmay maalmo kadib markii la sheegay in Yahuud ay ka jawaabtay weerar ay Iiraan ku qaaday iyada oo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ciidamada Ciraaq ayaa goorsii horeysay sheegay in howlgalka baaritaan oo ballaaran ay ka sameeyeen waqooyiga gobolka Nevene ayna ku heleen gaarigii loo adeegsanayay weerarkaasi bayaankan ka soo baxay ciidamada ammaanka Ciraaq ayaa waxaa lagu eedeeyay canaasiir fallaaga inay gantaalo la beegsadeen saldhigga isbahaysiga caalamiga ah ee bartamaha dhulka Suuriya